الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين anagoo ah xubnaha kala duwan ururka horumarinta bulshada afka iyo dhaqanka suuban ee Sidigmaal oo kamid ah ururada ka shaqeeya magaalada Burco insha Allah tacaala waxaan walan ku duubi doonaa barnaamij wacyigelina oo ku saabsan xanuunka loo yaqaano coronavirus disease 2019 waxaan isku dayi doonaa bal scientifically ama si cilmiyeysan inaynu uga hadalno xanuunkan marka laga hadlayo waxa la dhahaa had iyo jeer xanuunkani waa infectious disease marka la leeyahay waa infectious disease waxa looga jeedaa had iyo jeer waa xanuun uu sababo pathogen ama microorganism xanuun uu sababo weeye microorganism ku say naqaano ama germs aynu naqaanee waa noole ilma aragtiya kaasi oo keenaya had iyo jeer xanuun keenaya waxa sababa marka xanuunkan noocyo kamid ah viruska ayaa marka sababa oo markaynu ka hadlayno had iyo jeer loo yaqaano COVID group loo yaqaano COVID group had iyo jeer waa koox kala duwan oo virusya kuwaas oo xanuuno kala duwan oo saalahan noocyo hargabka kamid ay kamid yihiin sababa weeye xanuunkani ma aha dunida markii koobaad ee lagu arkay laakiinse dunida hore uu uga jiray ee intan maanta uu yahay uun buu ka yaraa oo imka had iyo jeer waxa la oran karaa wuxuu noqday xanuun guud ahaan dunida oo dhan ku faafay buu noqday marka laga hadlayo had iyo jeer dunida wadamada adduunka intooda ugu faraha badan leh xanuunkani effect ama saameyn buu markaa ku yeeshay oo uu saameeyay waxa saalahan statistics ama xogta hay'adda caafimaadka adduunku ay soo saartay maanta taariikhdu ay tahay 23 bisha 2020 waxay tilmaamaysaa had iyo jeer in 300,720,222 kiis had iyo jeer dunida lagu arkay ilaa iyo markii ugu horeysay xanuunkani markaa uu dilaacay caseska waxa dhiskaroobay ama xanuunkan u dhintay 15,408 qof ayaa dhiskaroobay marka dadyowga xanuunka u dhintay ee dadka kamid ah waa 15,408 qof halka 100,000 qof iyo 605 caseska kamidina iyagu ay recovery noqdeen ama markaa xanuunkii ay ka bogsadeen waxa inoo muuqata markaa xogta xanuunkan ku saabsan in intay xogta sida u baahsan markaynu eegno dadyowga kala duwan ee xanuunkan uu ku dhacay sidoo kale hadii aynu isbarbar dhigno tirada dadka ah ee ka bogsaday iyo inta u dhimatay waxa inoo muuqanaysa inuu farqi aad iyo aad u weyn u dhaxeeyo oo 100,000 qof dad gaadhay ay ka bogsadeen halka 15,000 oo kaliya markaa dadka u dhiskaroobay ama xanuunkan u dhintay yihiin markaynu ka hadlayno xanuunkani wuxuu ku dhici karaa guud ahaan bini'aadamka oo dhan wuxuuna yeelan karaa had iyo jeer heerar kala duwan oo wuxuu noqon karaa mild that means xanuun yar oo fudud buu noqon karaa mid moderate ama calaamado dhexdhexaad leh buu noqon karaa sidoo kalena mid calaamado severe oo had iyo jeer daran keena buu noqon karaa gaar ahaan dadyowga uu ku noqon karo severe waxa kamid ah dadka saalahan waaweyn oo kale dadka xanuuno saalahan qaba chronic diseases sida saalahan cardiovascular diseaseski diabetiska wixii loo yaqaanay ama xanuunka macaanka ama sonkorowga aynu naqaano sidoo kale dadka all age ka heedadoodu aad ka waaweyn tahay buu xanuunkani ku noqon karaa mid severe ama mid daran wuxuuna dadyowga ku keeni karaya xaalado kala duwan oo ay ka mid tahay qofku inuu yeesho calaamadihii hargabka sidoo kale wuxuu keeni karayaa inuu keeno dhimasho waliba dadka waaweyn ama dadka difaacoodu hooseeyo saalahan waxa ka mid noqon kara dadyowga immunocompromised loo yaqaano ee dadyowga difaacoodu hooseeyo oo kale ayuu dhimasho ku keeni karaya waxa xusid mudan iyaduna in xanuunkani sida maanta dunida looga boonbooninayo aanu ahayn mid halis ah oo dadka oo dhan halis noocaas ku wada keeni karaya laakiin uu yahay mid had iyo jeer intiisa ugu badan ay tahay hadii qofku uu preventionkii ama ka hortagii ku habboonaa sameeyo mid laga hortagi karayo isla markaana xaalado halis ah aan keeni doonin anigoo u dhaafaya warbixinta inta kale axbaabtay ku xigi doonta intaasaan ku soo gabagabeynaya introduction-ka ama hordhaca guud ee ku saabsan xanuunkan aad iyo aad bad mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh mar labaadka waxa aad iyo aad ugu mahad celinaya ururka Sidigmaal oo soo qabaqaamiyay barnaamijkan aadkii aad ka qurux badan leh barnaamijkan ah barnaamij wacyigelin leh oo bulshada xaweenka ku dhaqan geyga Soomaaliyeed meel kasta oo joogto waxaan wacyigelin looga sameeyay xanuunka loo yaqaan coronavirus
mahmaha Soomaaliyeed ba jirta oo Soomaalidu ay isticmaasho mahmaha Soomaaliyeed waxa jira xusha la wadilay xisha gormada wax dareentaan waxa tir marka xaweeyaanka laba ay ugu dhacaan ka saddexaadna uu soo socdaan dareema sidoo kale waxa la tuko gormada wax dareentaan wuxuu marka laba ay seegto ayaan wax dareemaa marka xaweeyaan dadkeena Soomaalida badan ay wax isaga badan yihiin dad xaweeyaan marka laba ay ku dhacdo ama xaweeyaan waa ay baahidu u timaado wax dareemo hasa hada insha Allah waxaan barnaamijku qabeynaa wacyi gelinta malinaanu taa ka gudubno oo bulshadeena wax badan ay ka ogaadaan xanuunkan bulshada saameeyay ama adduunka oo dhan saameeyay coronavirus loo yaqaan coronavirus sidii uu inii sheegay xaweeyaan inanka waraaqan ka hadlayay Xasan Cabdiraxmaan waxa waa xanuun loo yaqaan worldwide waxa weeyaan adduunka oo dhan xanuunkan saameeyay ama adduunka oo dhan uu ku baahsan yahay waana xanuun marka virus ah groups baa la isku yiraahdaa wata xanuunkan reality xaqiiqada markaan ka hadlo sida uu yahay ama saameynta uu leeyahay waxa ku jirta buunbuunin ay la buunbuuniyay markaas maadaama waxa weeyaan wadamadii caalamiga ah ma waxa weeyaan awood faraha badan sheeganayay uu saameeyay waxaan doonayaa xanuunkan kow inaan ka hadlo afar qodob doonayna ka hadlo waxa kamid ah waxa loo yaqaan respiratory waxa xanuunkan yaa qaada xanuunkan yaa marka hore waxa weeyaan laga helaayo xanuunkan sida sidoo kale waxaan doonayaa inaan ka hadlo incubation period waxa loo yaqaan waqti intee leeg ayuu qofkan xanuunkan waxa weeyaan incubation period markii hore waxa la yiraahdaa af Soomaali ahaan waqtiga qofka uu calaamadaha waxa weeyaan uu muujinayo xasuudina waqti intee leeg buu qofka soo wax calaamada aanu muujinaynin soo xanuunku hayo sidoo kale waxaan ka hadlo waxa loo yaqaan sign and symptoms ama calaamadaha xanuunka uu leeyahay sign and symptoms waa calaamado waxa weeyaan dhammaan bulshada ay soo taqaano xanuunkan uu leeyahay sidoo kale waxaanu ka hadlaynaa waxa loo yaqaan complication marka la leeyahay xanuunkan muxuu reebaa ama muxuu ka tagaa haddaan ku soo dhawaado qodobka koobaad waxa weeyaan respiratory ama cidda xanuunkan waxa weeyaan markii uu horeysay laga helo ama qaata waxa kamid waxa loo yaqaan batiska ama waxa loo yaqaan fiidmeerta Soomaalidu waxa tiraahdaa waxa loo yaqaan magac maxay fiidmeerta kamid sidoo kale waxa kamid waxa loo yaqaan kamaliska oo Soomaalidu u taqaano geela sidoo kale waxa kamid waxa loo yaqaan snackska oo maska oo Soomaalidu u taqaano xayaan maska Soomaalidu u taqaano sidoo kale waxyaalo fara badan oo dheeraad ah la sheegay oo sidoo kale kamid tahay kalluun kamid noocyada badda kalluun kamid ayaa kamid ah xayaan respiratory ka qaada sidoo kale waxa weeyaan waxa imika ugu muhiimsan xanuunkan oo haya waa bilaadanka hayumanka iyaguna waxa noqday respiratory xanuunkan marka maxay uu la nool yahay bay noqday kuwaas waxa weeyaan wacida xanuunkan marka maxay respiratory waa ama xanuunkan waxa weeyaan uu qaadaysa ama cid xanuunkan u gudbinaysa waxa gudbinaya xanuunka inta aan soo sheegnay fiilneerti baa kamid ah kamaliska baa kamid oo geeli iyo sidoo kale waxa kamid ah masaska ama snackski baa kamid ah sidoo kale waxa kamid ah kalluunadaas aynu soo sheegnay oo badana waxa leeyahay xanuunkan bartii u horeysa ka soo fiday waa China waxa weeyaan wax allaali waxa doonaan cunaan maadaama wax allaali wax ka soo cunaan lama garanay xanuunkan marka wixii reality ama xaqiiqada ahaa ee ka soo fiday laakiin waa ku tirkuteen ama waxa weeyaan inta loo yahay ama dadku inta sheegayaan way xanuunkan hadaba loo yaqaano waxa soo dilay incubation periodkiisa waqti intake leeyahay qofkan aanu wax calaamada aanu muujinayn oo jirkiisa ku jiray waxyaalaha xanuunkan viruska kale uu ka khatarsan yahay kowdaas kamid ah oo incubation period kama kale leeyahay qofkii waa infected xanuunkii uu qaba hasa ahaatay qofka kama muuqanayso calaamada kama muuqanayaan xanuunkan waxyaalaha dadka ku laayay kowkaas kamid ah oo teemkiisa uu dheeryahay salaano kale qofka hadduu xanuunku qaba 2 cisho 3 cisho oo qofkii waxa weeyaan marka xanuunkii uu ka soo muuqdo markiiba treatment la gaara haboon laakiin xanuunkan waqti fara badan buu qofka jirkiisa ku jiraya kaas aan la ogaanaynin qofka inuu xanuunka qabo muddada waxa weeyaan culimo qoladan de sayniska iyo professorada ay soo qoreen waxa kamid ah 14 ilaa 20 ayay soo qorayaan oo qofku inuu hayna waqtiyo kala duwan la arkayo ilaa 14 cisho ilaa 20 baa la arkaya way sidoo kale waxa kamid ah xisbuudina sayna symptomska calaamadaha qofkan ka muuqanaya maxay sayna symptomska ma calaamadaha qofka ka muuqanaya waa calaamado badan bulshadu ay aad iyo aad xaway ugu dhareegsanto iska warhayso koo waxa kamid ah qofka marka waxa loo qabanaya sidii kaman kalo waxa la yiraahdaa hargabka si hargabka kale loo qabanaya ka bacdi hargabka marka loo qabto shaasi qofkii naqaska ku dheegaya short breath buu yeelanaya qofka waxa ku adkaanaysa neefta qofka ku adkaanaysa qofka neefta ku adkaato waxa weeyaan qofkii wax oxygen qofkii qaadan maayo factor waxa noqonaya langaska oo barta hawada ama oxygen laga soo saaraa langaska waxa la yiraahdaa samabada calaamadaha noocaas ay qofka ka muuqanaya waxa weeyaan waxa suudina waxa weeyaan hadoo waa maxay communication uu reebiyo communication xanuunkan uu reebiyo communication kale waxa xanuunkan reebo wuxuu ka tagayaa qofka markuu saga ka baax communication qofka uu ka tago ama uu ka reebiyo waxa kamid ah in qofku waxa weeyaan waxa la yaqaano blood diffusion inuu
langaska biyo ka geliyo oo waxayaan biyo qofka uu langaska ka geliyo ayaa ka mid ah sidoo kale qofku waxa weeyaan inuu minimumkiisa ama difaaciisa jiro uu aad iyo aad u daciifo ayaa ka mid ah كله waxaan jecelahay Soomaalidu inay ka digtoonaato waxaan ka hadlayno aad iyo aadna waxay dhamaanto idin Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh magacaygu waa Ismaaciil Maxamed ka socota ururka horumarinta afka bulshada ee Sidigmaal gaar ahaan waaxda arrimaha bulshada sanu ogsoonahay ka soo hadlayno mowduucan yaha coronavirus-ka ama COVID-19-ka waxaan ka hadli doonaa laba mowduuc oo ah yaa khatar ugu jira iyo mowduuca daawadiisa coronavirus-ka si aynu ognahayba waxa khatar ugu jira qof kasta oo age-kiisu ka weyn yahay 65 sidoo kale waxa khatar ugu jirta qof kasta oo leh xanuunada la yiraahdo underlying medical condition-ka oo ah xanuuno khatar ah xanuunada aan daawada lahayn sida kaliya xanuunka beer xanuunka xanuunada dhiig karka macaanka xanuunadaas oo dhan qofka leh ayaa khatar ugu jira sidoo kale waxa khatar ugu jira gabadha uurka leh iyadana loo baahan yahay markasta inay samayso check-in samayso haddana nimaadno daawadiisa kulli xanuunkan horta si loo geeyay daawo ma leh calaamadiisa ama sababta miskiisa in la daweeyo mooyee daawo ma laha laakiin waxaan inagu ku dhaqmaynaa sunnii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa daawo aynu ka dhiganaynaa xabad liindhanaana iyo sanjabiil xabad toona oo 1 litir oo biyo intaan ku karkarino deetana aynu cabno intaasuna unbayna inagu unbayna maxay tolay ka hortagahaan aad baad u salaamantii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن كل بلاوي يا مقعيقة وهسد موسى إسماعيل وحن كهذا دونا كورونا فيروس سيابها لو جهرتي كرا ويردلنتي جهريسا يا كشكيسي معلومات كله سيابها إنه جهرتي كرا أنت أنا أبدو صدق قلب مهمة أيا إن نفهمه صدق قلب حي كليهين إن نفهمه important transmission local transmission iyo community transmission إن نفهمه بقى very important هنا local transmission waxa weeye qoys guri ku wada nool oo xanuunkii dhexdooda isqaadsi oo ah inay hadii dhexdoodii qaadan in iyagu iska xakameeyaan oo qofkii ama macnaha uu xanuunkii helay in qol la geliyo oo lagu siiyo cunadii iyo weelkii waxyaalaha la isticmaalin sidoo kale important transmission-ka waxa la dhahaa qof intuu infected ah qof intuu tagay xanuunkii soo qaaday ka bacdina markuu xanuunkii soo qaaday qof kale family-gooda uu keenay baa la dhahaa sidoo kale community transmission-ka waxa la dhahaa bulsho inta gobol ka dhacay xanuunkii dadna ay bulshadii ku noolayd ka bacdi waxaan u gudagalayaa siyaabaha looga hortago coronavirus siyaabaha naga hortagi karnaa waa qof xanuunkii qabay qof aan xanuunkii qabin qofka aan xanuunkii qaba waxa fiican bulshadoodii inay ku kaantaroolso ama ku xakamayso guriga oo aan qofkaasi guriga ka soo bixin oo qol isaga xidho ayna la wadaagin waxyaalihii la wada wadaagi karayay tuuleedkii weelkii waxyaalaha noocaas oo kale inay iska xakamayso oo ayna la wadaagin sidoo kale waxa qurux badan qofka aan xanuunkii qabin aanan wali xanuunkii aan isagu helin in isagu personal hygiene ku dadaalo personal hygiene ku dadaalo oo yeesho qofkaasi gamcihiisa dhaqo markasta way gamcihina waxa ku nool bacteria aad u fara badan oo runtii farihiina ku sugan fayraskan farihiina dul saarana waxa fiican inaad waxyaalaha iskaga isticmaali karto waxa weeye saabuunta waterka sidoo kale alcoholka antibiotic ugu fiican bay kamid tahay 99.9 ah oo si fayraska si complete kaga dhameystiri karaysa marka waxa fiican markasta inaad samayso iska xakamayso farahaga fayraska dul saaran sidoo kale waa inay bulshadii ay guriga ku joogtaa oo ayna travel gelin ayna meelaha u sadcaalin meelaha kale waxa iska ilaalin kartaa meelaha ay bulshadii ku wada nooshahay oo bulsho badan iskugu iman karto sida meelaha laga adeegto meelaha supermarket la iskugu yimaado bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum kulanti haboon dhamaantiin halkan waxaan ku duubaynaa muuqaal wacyigelin oo ku saabsan COVID-19 ama coronavirus kaasoo aan doonayna bulshada inaan kula wadaagno bal siyaabihii ay uga hortagi lahaayeen iyo waxyaabo badan oo ay muhiim tahay inay markaasi sameeyaan barnaamijkan waxa soo qaban qaabiyey waxda arrimaha bulshada ee ururweynaha Sidigmaal intii ugu horeysay baa nuxurkii iyo bal xanuunkan waxa uu yahay inooga faallootay iyo waxyaabaha ugu muhiimsan loo baahan yahay in la sameeyo anigu waxaan bal in yar dul istaagi lahaa bal bulsho ahaan waxay inala haboon inaynu sameeyno oo anigu aan ku dheeraanaynin ka bulsho ahaan waxaynu u baahannahay si aynu xanuunkan uga hortagno ugu horreyn inaynu ilaalino nadaafadda siyaabo badan baynu ku ilaalin karnaa inaynu iska nadiifino wax kasta oo qashin ah oo inoo dhow oo kolay xaafadeenna iyo guryaheena way naqaanaa
qashinka waynu soo qaadnaa guriga hortiisa intaan jawaan ku xidhno ayaynu dhignaa laakiinse inaynu isku dayno inaynu jawaan adag ku xidhno oo bulshada ka adkayno si aanay markaasi aanay adhiga iyo waxaas aanay u qubin gaariga qashinkuna markuu ina soo maro aynu iska saarno waynu ku dadaalnaa mid kastoo inaga inaga midi inuu mar kasta u farxasho bulshada islaamka baynu inagu 5 salaadoodba waynu weysaysanaa inaynu ku sii xoojinno 5teena salaadood aynu weysaysan jirnay farxalkan inaynu ku sii xoojinno oo mar kastoo aad guriga soo gasho iyo mar kastoo maxaan kugu dhahdaayay aad goob kale aad tagtaba inaad farahaaga aad u maydho oo aad farxalato midda inaad ku dadaasho oo waliba aad saabuun ama alcohol ama wixii aad helayso markaasi jeermis dile ah aad ku farxalato qofkeena inaga midka ah qufac iyo maxaan kugu dhahdaayay xumad aad u saa'ida dareema oo hindisana isku arkaa waa inaanu bulshada kale aanu aad u dhexgelin si aanu markaasi xanuunkii aanu u gudbin waynu iska garanaynaa kolley hadeer guud ahaan waxaa iska jira hargab baa isaguna iska jira hargabkaa laftarkiisana waa inaynu isku daynaa bal isagana inaynu aad aynu u xakameeyo isaga xakamayno inaan bulshadii kale aynaan waayay waa inaynu isku daynaa bal keenna maxaan kugu dhahdaayay qufac xumad ama maxaan kugu dhahdaayay hindiso badan isku arkaa inaanu bulshadii kaleete u dhexgelin ee uu iska karantiimeeyo oo even xitaa markaad gaadiidka la soo raacdo waa inaad u sheegtaa tirada anugu calaamadaha noocaasaan isku arkay markaa waa inaad iga durugtaan oo aydan ii soo dhowaanin si aan marka xanuunkii aanu u gudbin oo aanu u sii faafin kolley soomaalida middaa laga heli maayo waan isleeyahay oo aad baynu wada adagnahay laakiinse kolley innaga danteennaa ku jirta waa inaynu aad ugu dadaalnaa inaynu aad isu xakamayno haddaad adigoo guriga jooga aad calaamadahan dareento waa inaad gurigaaga iska joogtaa oo aadan soo dhaafin markaa qolooyinka caafimaadkana aad la xidhiidhaa si halkaaga kugu imaadaan oo wixii talo iyo daweyn ay ku siin karaan si ay kugu siiyaan waa inaynu isku dadaalnaa bulsho ahaan inaynu aad u isticmaalno waxyaabaha kulul hadday sanjabiil tahay hadday toon tahay waa inaynu aad u adeegsanaa oo kolley innagu markii hore waxaynu kula dagaalami jirnay hargabkaynu kula dagaalami jir haddeerna waa inaynu aad u sii isticmaalnaa aynu intii aynu sii badsannaa guud ahaan ganacsatada soomaaliyeed waxaan aad ugula talin lahaa gaar ahaanna ganacsatada reer somalilan inay aad u qiimaha raashinka iyo daawooyinka qiimihii ay marayeen markii hore bulshada ay ku gadan jirtay inay u daayaan oo aanay waxba ku kordhinin qadarto lama joogno xilli aynu kala faa'iidaysano laakiinse waxaynu taaganna xilli aynu isu faa'iidayno oo wax aynu isu tarno xilli aynu isu faa'iidayno baynu markaa aynu joognaa marka waa inaynu bulsho ahaan isu naxariisanno oo haddaynu xitaa qiimaha jebin karno aynu u jebinno bulshadeennii maadaama waxyaabo badan oo dalalka dabadiisa inooga iman jira hadeer la hakiyey ay intii hore ay ka yaraadeen bulsho ahaan waxaanu leenahay caafimaadka mar kasta innagaa u baahan innagaana ku nool waa inaynu markaa ku dadaalnaa sidii aynu usii xoojin lahayn ka hortaggu waxa uu ka wanaagsan yahay isdaaweynta waa inaynu isku daynaa inaynu ka hortagno xanuunada waxyaabaha la yaab kale aan arkay waxa ka mid ah hadeertolo waxa laynoo fasaxay inaynu guryaheena joogno oo aynaan bulshadii kale bal aad isu dhex gelin laakiinse waxaan moodaa in laynoo fasaxay inaynu isdhex galno maqaaxiyaha goobaha kafeteriyooyinka goobaha dhallinyaradu isugu timaado dhammaantood way buuxaanoo dhallinyaradu way isugu wada imanaysaa iyadoo la doonaya in aad loo yareeyo taas waxay haddaynas xoogaa inaynaan farriintii layna siiyey inaan hore u qaadanin markaa bal aynu ku dadaalno inaynu farriimaha walaalayaal qaadanno oo aynu dowladdeenna wax kastoo inooga soo baxa siduu yahay aynu u qaadanno aad baad mahadsantihiin dhammaantiin tan waa farriin aan ugu talagalnay inaad wax ku qaadataan bulshadiina kalena la sii wadaaga idinkuna noqda kuwii ka faa'iidaysta isla markaasna waxyaabaha aan u sheegnay toos u abbaara ee fuliya aad baad mahadsantihiin